السلام عليكم ورحمة الله. وقيبتي لماد godadka taasiili. qaybta hore waxaynu maraysay in baariyaashu ay ku wareereen in sawirada godadka taasiili ay yihiin kuwa jira maadaama ay sawirada ay u laabanayso 30,000 sano ka hor maadaama uu bini'aadamku ku jiray marxaladda bilowga noloshiisa. haddii aad horey nala socotay aad mahadsantahay la socodkaaga. haddaadan horey nala soconina daawo muuqaalkii hore ee ku dhufan linkiga meeshan kaaga muuqdo ama ka daawo end screen-ka markaad muuqaalka dhamaysato kadib. aan ugu gudubno qaybtii labaad ku soo dhawaada mawduucina maanta. saynis yahanadu waxay ku wareereen in ay sharxaan qoraaladaas iyo sawiradaas meeshaas ku sawiran oo la sawiray 30,000 sano ka hor halka uu bini'aadamku ku jiray xilligaas bilowga noloshiisa. balse su'aasha ilaa maanta jawaabta loo helin ayaa waxay tahay sawiradaas ma waxay ahaayeen naqshado ay iska sawireen dadkii hore oo aan wax macnaha ku fadhinin ama waxay ka tarjumaysaa ilbaxnimo ka jirtay dhulka maalin un. si loo fasiro sawiradaas iyo qoraaladaas loogana jawaabo su'aalahaas waxay u baahan tahay raadin badan iyo fikir. si loo helo jawaabta u qalanta waxay aqoon-yahanadu ku fasireen faalooyin kala duwan oo yaabgeliyay dad badan waana la isku khilaafay. aragtiyo badanna waa laga dhibtay. aragtida koowaad ayaa qabto in noolayaal ay ku nool yihiin hawada sare ayna soo booqan jireen dhulka. aragtida lamaana way soo dhow yihiin. waxay qabtaa ama laga aaminsan yahay in noolayaasha ku nool hawada sare ay asalkooda hore ay ku noolaayeen dhulka aadanaha ka hor. dadka qablo badan aragti ayaa ku andacoonaya inay jiraan noolayaal caqli leh sidii aadanaha oo kale kuna nool hawada sare kuwaasoo mararka qaar soo booqan jiray dhulka kana imaan jiray meelo ka baxsan dhulka xiriirna la lahaa dadkii hore. ayadoo sidoo kale ku tilmaamay in xiriiradaas ay saameyn weyn ku lahaayeen horumarka aadanaha iyo agabka ay isticmaali jireen waxayna daliishanayaan sawirada laga helay godadka taasiili. waxaan filayaa inaad filmaan badan aad ka daawateen noolayaashaas loogu yeero alieniska. waxaana ka mid ah filimka loo yaqaano jaadu oo aan badankeenu aan naqaano. dad badan ayaa aaminsan labadaas aragti waxaana ka mid ah qoraaga reer Switzerland oo lagu magacaabo Erik van Däniken oo qaatay aragtida noolayaasha ka iman jiray hawada sare wuxuuna ka qoray buugaag badan. waxaa kaloo laga soo saaray dhowr filmaan oo dokumentari ah oo ku saabsan godadka taasiili ay noolayaasha ka iman jiray hawada sare iyo xiriirka ay la lahaayeen dadkii hore ee ku noolaa dhulka. laakiin aragtidaas waxaa diiday aqoon-yahano badan waxayna dhalisay su'aasha ah haddii ay noolayaashaas xiriir la lahaayeen dadkii hore midna soo booqan jireen maxaa hadeertaan u diiday oo xiriirka gooyay aawe hadda maxay soo booqan laayihiin. aragtida saddexaad ayaa waxay qabaan in ilbaxnimo iyo xadaarad ay ka jirtay halkaas taa oo gaartay horumar aad u sareyso balse waxaa ku dhacday burbur marka ayay godadka darbiyaashaas ay ku sawireen sawiradan si ay u reebaan raadad loona ogaado in horumar ay gaareen. aragtida afraad ayaa waxay qabaan in sawiradaas ay u laabanayso magaalada dhuntay ee Atlantis. magaaladaas ayaa markeedii ugu horeysay laga maqlay falsafiyaqaan Aflaatoon ka oo sheegay mar inuu booqday dhulka Masar odayaalna kula kulmay meeshaas. odayaashaas ayaa waxay ii sheegeen ayuu yiri in awoowayaashooda ay ka maqli jireen in ay jirtay magaalo weyn oo gaartay horumar aad u weyn balse hal mar la waayay lana ogeyn waxa keenay in la waayo. balse fikradaas waa la diiday sababtoo ah dadka ku noolaa magaaladaas ee Atlantis waxaa lagu sheegaa in ay horumar gaareen weliba horumar aad u weyn. sidee bay macquul ku tahay in ay heli waayeen meelo ay ku sawiraan horumarka ay gaareen ay u doorteen inay ku sawiraan godadkan taasiili? ma buugaag ayay waayeen oo ay ku qoraan ilbaxnimadooda? aragtida shanaad ayaa ayagana qaba ku safarka waqtiga. aragtidan waxay leedahay sawiradan waxaa sawiray dadkii ka yimaaday mustaqbalka taa oo loola jeedo dad arkay horumarka ay dunida gaartay ayaa nolosha dib ugu laabtay 30,000 sano ka hor markaana sawiray sawiradan. aragtidan waa aragtida ugu cajiibsan waana ku safarka waqtiga. muuqaal dhammaystiran ayaa uga hadli doonaa waxa ay tahay ku safarka waqtiga.
in uu qof ka yimaado mustaqbalka imaadana waqtiga maanta. haddii aan usoo laabano mawduuceena godadka taasiili, aragtidan ayaa sheegayso in dadka ka yimaada mustaqbalka ay ku fashilmeen inay dib ugu laabtaan bartooda ama mustaqbalkooda, ama inay ku guulaysteen inay u laabtaan mustaqbalka balse intaysan bixin ka hor ay sawireen sawiradan si loo ogaado in dunida ay horumar ay gaari doonto mar un. aragtiyadaas oo dhan waa qiyaas ee ma ahan wax la hubo. ilaa ay maantan la joogo ma jirto jawaab cad oo lagu xaliyay arrinkan. waxa ayna tahay hal xiraale oo in badan ay isku dayeen in ay xaliyaan aqoon-yahanada. bal daawadayaalow, adinku maxay idinla tahay? ma idinla tahay in aragtiyadaas midooda ay saxan tahay, mise waxaa jirto aragti kale oo ku kordhin kartaan? muuqaalkeena maanta intaan ayuu egyahay. hana ilaabina inaad fikirkeena igula wadaagtaan kommentiga. sidoo kale ha ilaabin inaad ula wadaagto asxaabtaada iyo qoyskaaga. waxaa laga yaabaa in laga helo qof xaliyo hal xiraalahan. waxaan rajeynayaa inaad xalisaan hal xiraalahan. intaynu muuqaalada ay ku kulmayna ee bidinkii, waxaan idinka tegayaa fii amaanillah.